wuxuu marka marar fara badan baa waxaan ku yiri ninka beertan aynu gadno walaalkay oo lacagta aynu qaybsano walaalkay wuxuu beerta lama gadayo beertu waa beer dhan oo shaqeynaysa oo sanadkii intaas oo $1,000 ka soo baxaysa wuxuu hadaan gadno يعني ما عقلigaad laadahay adigu wuxuu soo lacagtu inagama dhamaanayso mid kale adigu aan ku garanay cali baad wuxuu lacagta dhan sanad baad ku dhamayn beerta lama gaday halkaas ku oolaysa lacagta ka soo go'dana waan qaybsanaynaa wuxuu anigu marka ma rabo beerta inay meesha ku taala ma rabo in la gadaan rabaa oo lacagteedana cuno guriga in la gadaan rabaa garaashka in la gadaan rabaa waxba in la gado walaalkay ma ogola aniguna awood aan wax ku gada malihi intuu walaalkay nool yahay de waa inaan walaalkay iska horleexiyaa marka si hantida dhan kaliya aan u qaataa sax ninkii cali maxkamad baa la soo taagay sidoo walaalkii u dilay iyo wax walba wuu matalay xataa waxa la ahlaam hameen ka dilaysay ninkan la yiraahdo Xaydar maxay ku maqli weyday maxay u toosi weyday si aynu u toosin wuxuu yidhi ilmaheeda yarba markay casheynayeen fiidkii cabitaan iyo waxay cabiyeen bankininka hurdada ugu daray say u hurday ahlaamde subaxii malaha 8 meelahaas soo kacdayo ninkeedu meedo halka yaalo bay aragtay ninkii Xaydar ahaayo ay u maleynayso marka iyadoo cali ninkan walaalkay ahana markuu waxay u lahaa lacag buu i weydiisanay walaalkay wuxuu ku yiri waxaan u baahanahay arin baa haysato ani ahlaam baa isku buuqnayo dagaal baa naga dhex jiray kaalayo imo oo igala hadal gabadhna dumaashada u taayleen mar walba isaga kala maslaxi jiray Xaydar marka toos buu gurigii walaalkii u aaday isagoo isla xaaska walaalka iyo walaalka kala maslax albaabka markuu saa uga furayna ninkan mindi uu sii diyaarsaday buu ku boobsiiday muuna guriga inuu soo galo gudaha xataa muuna u ogolaaninba waa sababta uu iridka u yaalay